waxa weeye waa rumaysan la'ahay golihii wasiirada ee Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya inay si wadara isugu raaceen in la yiraahdo dastuurkii dalka uu ku dhaqmahayay maalintaynu xorriyadda qaadanay ilaa maantay xagga la iska dhigo hal lagu tunto qof ajnabi dartiis hal qof oo ajnabi dartiis waxay arintaani xasuusinaysaa dowladdii ka horeysay oo saxiixday EU-du xafiisyo ay ka dhisanayso meesha la yiraahdo xalane markaasa waxa ku yaala heshiiska lala galay EU-da qof Soomaaliya kama shaqayn karo xafiisyada markii la dhiso ama ha haysto baasaboor ajnabi ah ama yuusan haysan qof Soomaali u dhashay kama shaqayn karo mudane gudoomiye warqadaani waa khiyaano qaran weeye warqadaasi waa khiyaano qaran barlamaanka ogaada 275 baynu nahay waxaan ka wakiilnahay in ka badan 15 milyan oo dadka waa la yareeyaa Soomaalida ah 22 milyan baan dadkaas xuquuqdoodii weeye waxa maanta laga hadlayaa wax badan baan u saburay waxaanu u saburaynay waxay ahayd dawlad jacayl bay ahayd yaan wax been baa lahaa maalin walba in lagu xadgudbo hanti iyo maamul iyo xeerar iyo dastuur shacbiga Soomaaliyeed oo sidii la rabo loo maamusho shalay bay ahayd 333 kilomitir oo badda Soomaaliya baa waxa la bixiyay 150 sharikadood oo Shiinaysa la siiyay waa nimankii soo xaalufiyay meesha la yiraahdo West Africa badda 6 bilood bay ku soo xaalufiyeen kuwaas baa faraha laga saaray waa aamusnayn maanta in la yiraahdo haddana in la yiraahdo maantay dastuurkii dalka u yeelay muwaadin Soomaali in laga tirtiro la yiraahdo muwaadin Soomaaliyeed baa u tartami kara la tirtiraya xeerka kan halkan ku qoran oo 117 wuxuu leeyahay muwaadin Soomaaliya kaliya oo qualified ah u tartami kara Central Bankiga kaasa la tirtira xilibaan waxaanu ku taariikhaysanaanaynaa inaanu galay khiyaano qaran shacbiga Soomaaliyeed doqonno maaha waana maqlahayaan markhaati bay ka yihiin ilaahay baa markhaati ka ah waxa weeye xuquuqda ay leeyihiin idinkoo 270 oo wakiilka ah ha baabi'inina hana tirtirinina waa ma